dartiga lacag badan oo kuusa ka helo views-ka iyo kaciimo fahanteen marka lacag waa ka qaatay YouTube-ka laakiin hadda inta dhan tahay marka lagu sii sheego ma qurxana Soomaan laakiin dad wali waxa la soo raaciyay waxa la dhahay dadka markay lacag ka helaan YouTube-ka ka niyad jabiya ma dhahayaan lacag ka helnay ma soo sheegayaan waxba ka helnay lacagta ka heshay YouTube-ka intee dhan tahay ما أوليس بك قاعد العقوة كقاعد هلا عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلامة دماغ ولا كل حرة شنو كذا ملك استودون كجوكتين حنير جينين خير عافمات فرحت بش إبراقنا كنا ولاتين إن شاء الله أنت نحنوصل إلى عافمات تمام وسي أنت عافمات قبل لها وسيادي إن شاء الله سور دواذا أجد أمها سنتين سيد وناكسنا وقروح بدنا إلى جوكتين وحد لي الله هذا الشرفاء ملك استودون كجوكتين إن شاء الله ما أنت موضوع يعني محكو سابسين هاي موضوع يعني محكو سابسين هاي سؤالي جواب Q&A قبل سدو يقانو إن شاء الله سؤالي جوابها أنك جوابه ما أهن إنا قفك أقف العلنايو محيسة ويدسين ما أهن إنا أن أقف العلنايو محالي دهي وحياتها إنا إذن دريسيو إنا كومنتي إنا أقري إنا أركي إنا تهي إنا كجوابه محاجر السؤال عادي كومنتي عادي اللي وسوي دي يقول يسوي دي انستغرام كاستنا marka su'aalis ayaga idin soo qaadana insha Allah sidoo kale waxa jiro gabdho youtuber ah oo rabo inaan talo u soo jeediyo asxaab aniga ma isnaqaano oo rabo inaan talo u soo jeediyo sidoo kale gabdho kale oo ayaga ka niyad jaba YouTube-ka iyo qof kasta oo maxaa dhigi jira walaal ah oo isjecelnahay ama aan rabo inuu horumarkiisa inuu gaaro aan u soo jeedina taladan marka koowaad horta Allah subhanahu wa ta'ala qof kasto bini aadan ah wuxuu u qoray ayuu helayaa wixii doonta ahaato carafkaagana mar buu qoran yahay social media-hana sida bini aadanba qof kasta oo soo galay ama qof kasta oo ku jiro wuxuu uu ka sameeysta ayuu kala kulmaa haday wanaag tahay wanaagiisu kala kulmaa haday xumaantiisu kala kulmaa laakiin inta badan waxa aaminsanahay gabdhaha quruxda qiimaha badan ee muddooyinka dambe ku soo biirayay iyo wiilashaba iska dhex inkastoo ay gabdho u badan yihiin waxay sameynayaan marka u horeyso caqabadaha u horeeyo ka hor imaado YouTube-ka oo ah watch hour-ka oo 4,000 iyo maxaa la dhihi jiray caqabadaha ka hor imaado ay kamid tahay watch hour-ka 4,000 iyo 1,000 subscribe ay waxay ku noqdaan confuse iyo niyad jab wallahi aan ku dhahay oo suma wallahi hadii qofka uu isku dayo ama aad dadaalkeeda suubisid intaasba waa sameyn kartaa dad badan oo waxa jira ani dhaheen saacada sidee ku buuxisay aniga horena waa usoo sheegay fiidiyoyada gadaal hadii loo raacan waa arki kartiin aniga saacadaha waxa ku buuxiyay live qofkii yaqaanan wuu yaqaanaa YouTube-ka hada 8 bilood ku jira waxa jirtay 3 bilood oo kamid ah habeen kasta live baa soo gali jiray live soo galay hada ka hor waxa ka haya gabar kamid ah gabdhaha YouTuber oo tirada saa ugu live ugu jiray tirwa caatowaan dhiman maahan hadda aniga marka live farto live ayadoo la bixin rabo waqti saacadaas ii buuxsameen live horta ku buuxiyay wallahi live ka da soo gashid oo adiga inta soo fadhiisatid barnaamij ama program ka sheekaysid oo programkaas dadku u qanciyo habeenkii u horaade 2 ku yimaad 3 ku yimaad 4 ku yimaad 5 marka daba lagu barnaa 10 20 30 marka daba waxa gaaray heer dad badan ay ku yimaadaan oo mowduucaaga oo la xiiseeyo marka hadda ka niyad jabi lahayd oo dhihi lahayd lama buuxin kartay saacadaha ay 1,000 subscribe-ka ah iska dhaaf hadda marba YouTube ah furtay ama ugu tala gashid ina horumar ka gaartid horumarka ka rabto ka gaaraysaa hadii aad u samirtid way laakiin wax walba samir ay rabaan Soomaa laakiin hadii aad dhahayd wixii maxaa dhahay geel gal garoorta ka keen waa dhibaato ma dhihi jirto ma weena ka saaya ina marka macaawa furtay bil waa ina helaa 1,000 subscribe iyo 4,000 saacadood dhahayd dhibaatay kugu noqonaysaa adigana caqabadaha kala kulmay oo ku niyad jabay laakiin ayadoo ay jirto waliba in saacadaha la gadan karo waa qofka ugu talgalay inuu saacadaha gato saacadaha la gadan karo jid shirkado badan oo saacadaha gadaan iyo subscribe-ka haddana waxa fiicanay saacadaha waa buuxin kartaa ama gadaha dal cageysatid ama live-ka gal waliga ha ku fikirin inaad waxba aad buuxin karin waxba aad qabsan karin so hadda waxaan arkay gabdhaha hadda ay ku socoto fariintan gabdho badan oo furtay inta badan waxay soo weydiiyaan groupyo aan gabdhahaas u haayo oo iska naqaano waxay igu soo weydiiyaan saacadihii aan dhibay saacadihii aan buuxin laanahay saacadaha dartooda isaga dhaafayna wallahi waxaan ku dhahay teeda kale waxa fiican qofka inaan wuxuu asaga aqoon u leeyahay
in qofka waxa fiican sidiisaba waxa markaa soo gashay inaa aqoonteeda inaa leedahay oo fahamsanta hadda adiga aqoon xataa qof kula jooga ama qof ehelkaaga ama qof kula maamulo oo yaqaan jira gabar waxaa jirtay hadda gabdhaha youtube-ka ku cusub ay jirtay waxay ugu tiri saacadii waa buuxiyey waa dhameeyey saacadii waa ii dhamaadeen hay waxaan dhahay mabruuq wallaahi si fiican aa samays maasha allah ilaah kuu gargaara saacadii ma buuxisa ha maalmaha kamid a gabadhii waxay fiiriyey waxay ka fiirisaa mar walba youtube studio ka fiirisaa saacadahan youtube studio ma laga arko qof walba yaqaana google chrome bestigeeda haddaa tagay saacadeeda saxda meesha laga fiirinay waxay haysataaba 200 saacadood naxdin aniga waniya istaagi gaar qofkaas marka wuxuu ku fikiraysaa gabadhaas inay saacadii u buuxsameen oo waxay ka fiirisaa youtube studio ay ka arkaysaa 4000 saacadood 4000 minutes ay ka arkaysaa minute bas ku tusaya aynu waxay u qabtaa inuu buuxsamo marka aan u sheego 200 saacadood haysta waxay tiri may waa iska dhaafaa bas ani youtube ma rabiyo dhahday inta ka badan ma buuxin karo waxa waa iska dhaafaa taas ma ku fiicna haddii aad ugu tala gashay oo aad u soo dhaqgasha tabaadhiga u soo dheeraysta ma dhihi kariye waa ku sameyn kartaa waana gaari kartaa dadaalka aad rabtid hadda ku samirtid midda kaleeto gabdho kale waxaa jiro youtube-ka oga niyad jabay views yarida horta waxaa dhacdo waxaan waa calaf baa la cunaa viewska youtube-kan waayadan dambeeto dadka youtuberada waaweyn oo markay aragna awalka horeeto daqiiqad ama saacad gudahooda ay ku fiirsan jireen 500,000 300,000 20,000 ay sakan ay ku fiirsan jireen hadda waxaa dhacda one day inay 10,000 gabdhahaas waxay ka niyad jabeen ama ay kaga samreen youtube-ka u dhaafeen viewska yarka marka anagoo arkeeno youtuberka waaweynaa oo 100,000 ay fiirsan jirto one day ina 20,000 ama 7,000 ay 8,000 9,000 ay fiirsatay si aad u niyad jabay waxaan waa waqti waa calaf maanta hadday 100 qof ku fiirsatay iska sug biri laga yaabo mawduucaas ka fiican inaad keentid ee dadka ku jeclaadaan in ka badanna ay ku fiirsato laakiin adiga ha u niyad jabin maanta too qof ima fiirsanin iyo 2 qof ay fiirsatay 3 qof ay fiirsatay waliga taas ayada ha ku fikirin hana niyadaadana ha ka dhaadhacsiinin inay 200 ku fiirsato adi hadaf baa leedahay gool baana hiigsanaysaa goolkaaga hadafkaaga maxaa ku hiigsan kartaa qalbigaaga inuu nadiif ku yahay ama ku talagashid mar walbeeto sida ku gaari lahayd guusha aad u socotid taas waa taladayda waxaa ku soo hartay markaa su'aalihii jawaabihi 4 su'aalood aan kaga jawaabo oo soo weydiisan su'aalo badan ay soo weydiisan 4 kamid ah in kaga jawaaba insha Allah 2 kamid ah waxa ka soo qaatay Instagram-ka 2 kalena waxa ka soo qaatay YouTube-ka su'aasha koowaad waxay tahay waxaa la dhahay su'aasha koowaad waxa waaye dhowr qof oo kala duwan dhowr meelood iga soo kala weydiiyay waan ugu soo noqotay waxaa la dhahay fartuun lacag wali ma ka heshay youtube-ka haddii aad ka heshayna meeqay dhan tahay su-aashaas waxay ku fiicnaada umala in la weydiiyay dadka waaweynka oo youtube-kooda oo u kala kacsanya maaragtay kumanaanka kun fiirsadaan iyo 100,000 iyo in ka badan anigoo iska aragtay maskiinta la miskiyo videoga ugu badan maqaa fi 30,000 fiirsatay tawaranay 30,000 hal toddobaad ku fiirsatay dad videoga ugu badan inta kale wax ka yar waa marka qof oo saas lacag badan uu ka helay youtube kula tahay dartii lacag badan oo kuusa ka helo viewska iyo ka ciiman baanteen marka lacag waa ka qaatay youtube-ka laakiin se inta dhan tahay marka lagu sii sheego ma qurxana Soomaan laakiin se dad wali waxa la soo raaciyay waxa la dhahay dadka markay lacag ka helaan youtube-ka ka niyad jabiya ma dhahayaan lacag ka helnay ma soo sheegayaan waxba ka helnay lacagta ka heshay youtube-ka intee dhan tahay mama ulis ma ka qaadatay lacag waa ka qaatay ha laakiin si inta dhan tahay wax macnaha hadda makeeris laakiin muhiimadda waxay tahay in lacag ka qaatay haddii aad dadaashidna haddii ana inta siirista aleh lacag ka helay dadka ka badan waa ka waaweynka waxay sameynayaan maasha Allah waa maho idinka raadada dadaashin ka badan ay helaysiin insha Allah ani yaryarood kale ka badan heshiina idin rajeynaya ani idinka waa wada rabnaa qof lacag diidaysa malaha Soomaan inay su'aasha labaad waxa waaye views ma gadatay su'aasha labaad waxa waaye views ma gadatay aniga viewska ma qumar aan gadanay ma wallahi ma dhigi jirto ma wallahi ay daarsiinine views ma gadanin adaa lacag haystana views ma gadan lahayn hatta lacag ma haystiyo oo views ku gatay sheekaas ku kale laakiin hadaa lacag haysta hatta views ma gadan lahayn sababtu maxay tahay lacag أنا ما أصاب قلنا هدي إلهي العق أصير العق إلى العق ما قصير ترى وامي لكن أنا ده العق يستدي ويقدر كرت فيوس كذا اسكسو عم بحسد أما دهره الجنة القصد ضرر الدعوة لكن أنا يوم ما قدرين سؤال شيء تدحات وحوا حين قرطة سؤال شيء تدحات وحيت وحالي ده رواية دي أنا بلنقاضي حاجي كده بيسي صح ما
hadda kor waxaan ballan qaaday inaan riwaayado kusoo kordhin doono youtube-ka hadduu ilaahay yiraahdo tahay hadafkaygana inaan riwaayada iyo barnaamijka haweenka iyo wacyigelinta iyo waxaas aan wado bas aan soo gelin doono insha allah riwaayadahaas meesha ku dambeeyeen haddaan iga dabageena waxaa jirtay riwaayadaha aniga sameyn rabay waxay ahayn riwaayado ka hadlay xaqiiqda dhabta ah iyo dhacdooyinka jiro sidaas darteed waxaa masti ah qofan ajnabi kaa ahayn inuu kula wado riwaayadaas ama actor u kaala noqdo actor qofan ajnabi iga ahayn oona gacantayda taaban karin inuu ila jilaan diidanaa ma fahanteen sidaas darteed waxaa rabay walaalkay laba wiila walaalahay oo imaanayay inaan isla jirno wiilashii aa gadaal iga dib dhaceen oo diyaaradihii ee muddo iga qaadatay inay imaadaan insha allah hadda way imaadeen alxamdulilah qaar ka mid ah hal mid wuu imaaday mid la ii dhiman riwaayadina qorideeda waa la dhameeyey laakiinse waxaa dhiman jilinkeeda wax badan ma qaadanaysa sidaas darteed aan rabay riwaayadaas ilan waxaan ku jilaynay barnaamijyo iyo dhacdooyin kala duwan oo xaqiiqe ah taasna waxay u baahan tahay qofan ajnabi kaa ahayn oo isku dhawaan kartiin aysa salaami kartiin aniga maadaama aan marwo ahay in dadka aanan nibcahan adduunka ajnabi inaa u dhawaado ajnabi qofiga inaa marka ala jilo ama isku dhaweeyo oo qof kaleeto ajnabiga ah diidanaay saas darteeda ee dib ugu dhacday insha allah hadduu ilaahay yiraahdana waa soo dayn doonaa waana bilaabi doonaa jilinkeeda inato su-aasha afraad maxay tahay su-aal ma ahayn taas laakiinse waxay ahayd gabar waxay soo tiraa waxaa laga yaaba qosol igu dishay wallaahi waxay dhahday make upka cidda waa ka dhameysay waxna meesha ma ku haysid ma idhahdo make up haddaan marsan lahay waa ii dhacan lahayd sooma make up horta ma qabaa guriga dhan waa laga soo helayo wax make up la dhaho saas laisku marmaray ma fahamti kasii darantan inaan dego oon soo marsado maxaa dhihi jiray make up iyo waxalka nalkii nuurka usii ekaalahay moo anaka hadda iska yahay gacanteedii iyo gacantay xataa make upka gacmo maala marsaa cilaanka xataa dadka jeclaaniga miyihi saas darteed aqwaantay dar ilaahay ku degbiyo qowcab make upka cidda ma ka dhammaynin isku raal noqoyaa make upka cidda waa ka dhammaysay tiri wallaahi bilow iga raysay waxna meesha ku haysa maa kusii raacsiisay waxna meesha waa ku hayaa walaali macandi saas dhan dad ha ii jijibinini iga dhacaan kudha iga dhac waa mahadsan tahay fikirkaaga isa ii soo wadaagta adi naftirkaaga ballanteena waxaa waaye asxaabeey inaan laga niyad jibin qof kastayto oo hadafkiisa iyo guushiisa iyo goolkiisa iyo yoolka uu higsanayo inuu weligiis ku taagnaado barnaamijkan ama hadalkan su-aalahan iyo dhiirigelintan yarta ana waxaa ugu talagalay in adinka in kula qaraaxaysto in la soo wadaago aadan weligaa ku fakerin hebel wuu kaa hormaray hebel wuu kaa dib dhacay hebel wuu ku dhaafay kaliya aad ku fakartid adiga hebelka kaa hormaray sidaa ku gaari lahayd laakiin hebel siduu kaaga hormaray aad weligaa ku fakerin sababto ah adi iyo hebel ilaahay maba idin siminba adii hebel ilaahay ma idin ka dhigin hal qof laba qof oo laba nolol kala haysto in ka dhigin laba waqti hal waqti ma wada dhimanaysiin laba waqti kala dhimanaysiin qof walbana calafkiisii buu cunayaa marka adi weligaa ha ka fakerin qof kaa hormaray muxuu kaaga hormaray qof kaa dib dhacay muxuu kaaga dib dhacay qofkaan muxuu daaray kaliya ku fakar adiga sidaa ku noqon lahayd qof guuleystay oo hadafkiisa uu successful u noqdo waxaanu ku mashquulin nolosha iyo dadka kaleeto shu-uuntooda iyo afaarahooda haddii ay dhacdo inaad soo gashay social mediaha qaasatan youtube-ka oodna tahay gabar soomaaliyeed weligaa ha ku niyad jabin inaad ka fakartid ama aad ka niyadaada aad gelisid hebel maanta intaasuu helay adina waa inaa intaas heshaa heblaayo maanta intaas heshay waa adna intaas heshaa heblaayo intaas waxay ku heshay waa dadaalkeeda waa kartideeda adigana inaad dadaalkeeda kartida suubisid ama aad suubi kartid iska dhaadhic sababta qofkan 9 bilood ku dhashay adna 9 bilood ku dharto wuxuu sameeyey iyo wax ka badan baad suubin kartaa laakiin ha ugu xumaanin qofka guushiisa ku farax adigana maalintaada waa guuleysanaysaa